اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب الكسر هذا الصومالي كوميونتي كولج في عشرتين كسب سنة برشة اللغة إنجليش كان عشر كان منطقة وعشر عن استعمال الضمير إلى كلام الله لو أريا أو كلا keep and for. We are going to use keep and for to construct a sentence from the table below. هنستعمل دونا keep and for سنوصل منه جملوين. Okay, make at least 15 sentences أو يران كسمة 15 جملة from the following table كان هوسه. marka cashirka marka muhiimadiisa waxa waaye si aad u barato sida la isku xiro jumlooyinka sida jumlooyin ama sentence aad u sameyn karto luqadda boqolkiiba 80 waxay ku dhisan tahay inaad gacantaada qoritaan ka sameyso inaad wax qorto waxna akhriso way iswataan oo ah reading iyo writing way iswataan as you are writing you can also read marka it's very important to make a sentence inaad sentence sameyso aad ayay muhiim u tahay marka muhiim waaye inaad isku daydo inaad sentence yala sameyso jumlooyin inaad saxdo inaad qalad kuma xiran laakiin practice-ka ayaa muhiim ah ardayda markii isku fasalka yihiin oo arkaysaa hatta iska wadaas meelahan English looga hadlo laakiin kuwa Soomaali jooga ardayda waxa arkaysaa English taafka iyo kuwa meel laga xoogo ku adag yahay kuwa taafka wax kala ma sameyn sir kala ma sameyn laakiin waxa waaye waxay badiyeen qoraalka iyo akhriska marka aan soo laaban cashirkeeni aan sameyno sentence yala ama jumla ka sameyno table-ka meesha ugu sawran waxaan ka bilaabaynaa the children kan koobaad ah mid ka ma ka bilaaban karnaa laakiin the children ka bilaabaynaa will ayaan ku xijinayna marka will keep markwaan ayaan mid ka soo qaadanaynaa will keep samhani ayaan qaadanaynaa samhani for ayaan ku xijinaynaa marka for ayaan ku xijinaynaa for their friends markwaan mid ka mid ayaan soo qaadanaynaa for their friends the children carruurta will keep waxay u xanaanaynayaan samhani ama u haynayaan keep maxaa waaye qof maqan oo u sii haynaysa inta kaaga imaanaya samhani for the children ama for their friends saaxiibadood ayay u sii haynayaan okay jumlada labaad ayaan soo qaadanaynaa waxaan leenahay the boys okay jumlada labaad ayaan ku xijinaynaa waxaan leenahay the boys will keep some present term kor ayaan qaadanaynaa some present for ayaan ku xijinaynaa this one for their friends hadii kana darnada for their friends ayaan dhihi karnaa waxaa kaloo dhihi karnaa the boys will keep some honey ama some honey waan dhahnay the boys will keep some tickets for ayaan qaadanaa for their visitors the boys wiilasha will keep waxay u sii haynayaan some tickets oo yaro ticketkan baabuurta lagu raaco diyaaradaha for their visitors dadka soo booqanaya visitors marka laga yaabaa in ticketka hadda kan aroos yahay lagu aado waaye marka qoys arooska laga yaabaa in ana dadku imaanayo qofku u sii hayna marka wiilal inta loo qoshay inay ku imaanayo u sii hayaan ticketka marka the boys will keep some tickets for visitors okay halkan saddex jumla sameynay waxaa kaloo dhihi karnaa flight attendants will keep some written papers some writing papers for the neighbors ama for their relatives
they are relative. The flight معناها duulimaad waa marka attendance dadka ka soo qaybgalaya oo kadibtiya waxa meesha ku sugay diyaarad inta duulayso meesha ku sugay flight attendants will keep waxay ku siinayaan some written papers wax yar oo waxaan sheekh lagu qoraa for the relative qaraabooyinkooda ama waxa dhigta for the visitors ama for the relative ama for their friends marka intaas ayaan ku soo koobay example kan aan qoray waxa waaye kuwa xarfahan aan kala duwan kararka the children the boys the secretary the flight attendants waa afar xaraf will keep ayaad mid ku daraysaa kuwan ayaa mid ka qaadanaysaa for ayaa ku daraysaa kuwan ayaa mid ka qaadanaysaa aad ku dhamaynaysaa marka you can make it at least 15 sentences ka samee table kan meesha ka ujeeda hadda marka qaybta telegramka ay wadaagi kartaa saa u soo saxda insha Allah ama saa u qorta halkaas ayaan kaaga saxaya ama haddii kalena aad qadarto qaybta commentiga videogan ayaad wadaagi kartaa okay marka isku day inaad badiso sentence construction aad badiso inaad jumlada akhrin karto oo qori karto isku day aadna waa salaam ya salaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين.